gabadhu marka ay xumaan samayso iyadoo ka raaliya oo aan la qasbin oo uu ku soo baxo waxay reeruhu kala qaataan waxa la yiraahdo xaalka sinada oo raali bay iska ahaayeen la isma qasbin xaalka labada reerood kala qaadanayaan sharciyan oo sax ba sinadu xaal ma leh xaqeedii iyo waajibkeeduna waa in hadii shareeco la isku xukumayo waa in qofka hadii sinadu ay ku sugnaato qofku isagu qirto amar khaatiyaashii dee loo baahnaayo 4 markhaati oo raga oo cuduulo dee faasiqiin aan ahayn ay ka markhaati furaan iyadoo arrintaasi dhacaysa xaqiiqatan inay arkeen dee waa in xadka lagu oogo oo haddii labada qof ee arrintaa raallida iskaga ahi ay yihiin dad qaangaada oo miir qaba midna aan la khasbin arrinta ikhtiyaarkooda ay ku sameeyeen haddaanay dee guur hore oo sharciga soo marin waa 100 jeedal sida ilaahay kitaabkiisa ku sheegay الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة هدي أي جور هرا شرعية صومرين أما متكود صومرينا قفك جور هرا شرعية صومرين زينيستا عقاب كيسوا إن نجح الجديلا سنة المانتي آيات حكم كيدي على النسخين لكن لفظ كيدي للنسخين حديث النبي يقول عليه الصلاة والسلام يتلمام يسوع رسول كردد إيه وقرتي وكفولي كل آد بيوادك تهزيرة دي المرخاتي على كسقناته أنت وقت النبي عليه الصلاة والسلام دعدنا أنت بدنا راح كسقناتي ama dhammaanteedba waxay ahayd mid ku timi qiraal marka ciqaabkaasay mudan yihiin dadka xumaantaas sameeya laakiin in iyaga laftooda dib loo xaal mariya waxay ka mid tahay baa la odhan karaa waxyaabaha sahla zinada oo dadkii iyagoo is ogol ikhtiyaarkooda ku zinaystay haddana in wax lagu kala qaato oo kaanama in dee gabadhii un meel lagaga dhacay haddii dee la khasbay oo kale oo la xoogay taasi waa iyadu dembi kuma laha dembiga iyo dee ciqaabka waxa mutaysanaya ka khasbay laakiin mar hadday iskaga raali yihiin labadooduba ciqaab bay mutaysteen haddii aanay cidi ogaanna waa in ilaahay subxana watacaala u toobad keenaan laakiin xaal iyo xoolatoona arrin waajibinaysa maaha wallahu aclam